qaraxan ayaa goordhow waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dhawaqa qaraxa si weyn looga maqlay guud ahaan magaalada Muqdisho. Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa la sheegay inuu ku qarxay control ciidamadu ay ku leeyihiin agagaarka taalada Daljirka Dahsoon, halkaasi oo goob ah gaadiidka lagu baaro. Jugta qaraxa waxaa si weyn looga maqlay magaalada Muqdisho gudaheeda, ilaa haddana lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxaas. Qaraxa waxa uu ku soo aaday iyadoo si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada Muqdisho, sidoo kalena lagu daadiyay magaalada ciidamo badan oo boolis ah kuwaasi oo baaraya gaadiidka. Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa goordhow gaaray ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kooxaha gurmadka degdega ah. Warar aan helayno ayaa waxay xaqiijinayaan in dhibaatada ugu badan ay gaartay dad shacab ah oo degan kaam ku yaala goobta qaraxu ka dhacay oo ku dhagan Daljirka Dahsoon. Kaamkaasi waxaa naloo sheegay in khasaaraha ugu badan uu gaaro maadaama qaraxu uu ahaa qarax aad u culus. Risaas goosgoos ah ayaa la maqlay walow markii dambe risaastu joogsatay. Wixii ku soo kordhaa wararka YouTube-kan ayaad kala socon doontaan. Fadlan like iyo subscribe noo saar channel-ka si aad ula socoto wararka soo kordha.